kulanka baarlamaanka Soomaaliya oo shir gudoominaya gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa qodobo dhowr ah looga hadlay waxaana markii uu furmay kulanka gudoonka xubnaha baarlamaanka horjeediyay khudbad dheer oo kaga hadlayay howlaha adag ee baarlamaanka hor yaala oo ugu badan yihiin meelmarinta sharciyo badan gudoomiye Jawaari ayaa soo hadal qaaday mooshin qaar kamid ah xildhibaanada Soomaaliya ee ka keeneen ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya taasoo ku aadan in la soo daahin ama ay keeni waayeen sharci xisbiyada lagu hagi lahaa waxa uu tilmaamay in ay socoto muddo 14 maalmood oo qabteen xukuumadda oo ah inay ku keenaan shariga asxaabta xafiiska guddoonka waxaa soo gaaray mooshin oo ku saabsanaa axsaabta siyaasiga arrinta ayada ah ustaad xildhibaanada ay xusuusnaadaan akhrintii koowaad sharcigii oo lagu ansixinayay ama hinti sharciyeedka ama mashruuc sharciyeedka ahaa axsaabta siyaasiga akhrintiisa koowaad waxaa golahan laga akhriyey 25kii bisha May 2015 marka xildhibaanada 21 ah oo mashruucan mooshinka keenay arrintooda soo hawlo socdaan ilaa 14 ayaan sugaynaa xukuumadda inay keento hadday keeni weeyaan guddiga arrimaha gudaha ayaan amri doonaa in uu markaa soo hordhigo golaha aad iyo aad baad umahadsantihiin عرفتنا وماضيا ملا كسرني ملا كسرني أرتيا مسولكا ويا غرحا مسولكا ملاهين وحيا وجنا ضناي بدي كنتاجي وانا أمامنا لو وضع مشغوله مجاريد تلكينا ممكن قاله عبيرو عرفتنا ومموذيو ميلان قصاني أرتيا مسولكا ويا